nabadgelyo saaxiibayaal kuna soo dhawaada wararka caalamka iyo Soomaalida qodobada ugu waaweyn ee warkayaga aad ku daawan doontaan waxaa kamid ah madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo lagu bahdilay xafladii dhaarinta William Ruto loona diiday inuu la kulmo madaxweynaha cusub ee Kenya iyo farmaajo oo weli madaxweyne loo aqoonsan yahay laguna xusay magaciisa dhowr mar xafladii dhaarinta ee shalay ka dhacday magaalada Xasan Sheekh oo ka carooday xafladaasi iyo wafdigiisa oo ka soo ambabaxay magaalada Nairobi hadaba wararkii ugu dambeeyay xiriirka Kenya iyo Soomaaliya oo aan xog iyo macluumaad dheeri oo ka helnay ayaan idin soo gudbin doonaa. Ethiopia oo weli taageerayso ama taageero u haysa madaxweyne farmaajo villa Soomaaliya oo wada hadallo ka baryaysa Abiy Ahmed iyo Xasan Sheekh oo laga celiyay albaabka hotelka ra'iisul wasaaraha Ethiopia ka degan yahay magaalada Nairobi. ceeb iyo fadaxad weyn oo wafdigii Soomaaliya ka soo qabsaday Nairobi ayaan halkan idinkugu soo gudbin doonaa. iyo amniga magaalada Muqdisho oo faraha ka baxay xubno sarsare oo al-shabaab iyo rag qaraxyo ku xiran yihiin oo soo galay magaalada Muqdisho iyo hay'adaha amniga oo arintaasi ka warhelay oo tallaabo degdeg ah qaaday ayaan halkan idinkugu soo gudbin doonaa. intaasi daawadayaal waxay ahaayeen qodobadii warka ugu waaweynaa markana waxaad ku soo dhawaataan iyagii ofisan. waxaa soo baxaya in dowladaha Afrika ay weli ku xoogan yahay jaceylka madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo iyadoo la sheegay in xafladii dhaarinta shalay dhowr mar magaciisa lagu xusay isla markaana lagu bahdilay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo isaga markaasi ka soo carooday xafladaasi iyo wafdigiisa oo si degdeg ah markaasi ceeb iyo fadeexad kala kulmay magaalada Nairobi oo halkaasi isaga soo ambabaxay. Kenya ayaa si weyn u bahdishay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxaana ay hoos u dhigtay maqaamkiisa iyo waliba haybadiisa madaxtinimo kadib markii magaca madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo looga dhawaaqay xafladii caleemasaarka ee madaxweynaha cusub ee Kenya William Ruto. sidoo kale madaxweyne Ruto ayaa diiday inuu qaabilo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud taasoo ka careysiisay wafdigii madaxweynaha la socday oo iyagoo careysan alaabtooda ka soo xirxirtay Kenya. dadka siyaasadda la socda ayaa si weyn u dhaliilay taageerada weli farmaajo loo hayo iyo sida weli loo jecel yahay xitaa haddii uu xilka ka degay taas oo dhalin karta dagaal cusub oo ka bilowda dowladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. wariyihii xiriirinaya xafladda dhaarinta William Ruto ayaa dhowr jeer ku celceliyay magaca farmaajo xilli uu goobta fadhiyay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxaana arintaasi cara iyo calooliyow ku beertay madaxweyne Xasan Sheekh oo awalba xiriirka Ruto uu la lahaa aad u yara. dhanka kalena madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxaa ku socda weerar oo ay wadaan kooxda nabad iyo nolol oo taageero u ah madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo. si kastaba arrintan ayaa imaanaysa iyada oo markii horeba doorashada lagaga guuleystay madaxweyne Farmaajo iyo intii ka dambeysay uu dhowr jeer ku baaqay in lala shaqeeyo dowladda cusub isla markaana fursad la siiyo taas oo ka hor imaanaysa tallaabada ay qaadeen taageerayaashiisa. dowladaha deriska qaarkood ayaa aqoonsaneen in farmaajo looga adkaaday doorashada uu xafiiska baneeyay welina waxaa muuqata raadadkii uu ka tagay xukunkii nabad iyo nolol. hogaanka cusub ee villa Soomaaliya ayaa weli la daala dhacaya sidii qulubta shacabka iyo dalalka caalamka qaarkood uga saari lahaayeen xukunka farmaajo iyo taageerada dhabta ay u hayaan. shacabka magaalada Muqdisho ayaa marka aad weydiiso cidda madaxweynaha u ah weli waxay ku sheegayaan inay aaminsan yihiin xabiibul malaayiin madaxweyne Farmaajo. ilo wareedyo lagu kalsoon yahay xagga amniga ayaa inoo sheegay in xubno sarsare oo al-shabaab oo ka soo cararay dagaalada ka socda gobolada dalka ay soo galeen magaalada Muqdisho caasimadda waddanka Soomaaliya. arrintan ayaa markaasi saameyn weyn waxay ku yeelatay shacabka ku nool magaalada Muqdisho iyagoo cabsi xoogan ka muujiyay isla markaana sheegay in xaaladda amnigu ay faraha ka baxday. ilo wareedyo lagu kalsoon yahay ayaa waxay sheegayaan in xubnaha soo galay magaalada Muqdisho uu ka mid yahay afayeenka guud ee al-shabaab Cali Dheere iyo rag kale oo qaraxyo ay ku xiran yihiin. laamaha amniga oo arintani ka warhelay ayaa wada baaritaano xoogan oo lagu sameeyo xaafadaha magaalada Muqdisho si ay gacanta loogu soo dhigo xubnahan ee markaasi al-shabaabka ee soo galay. sidoo kale markaasi laamaha amniga ayaa waxa ay markaasi ku waramayaan in argagixisadu ay damacsan tahay in weerar ay ka fuliyaan magaalada Muqdisho gaar ahaan hoteelada qaar xarumo dowladeed iyo goobo dadka shacabka ay ku badan yihiin. al-shabaab ayaa ka daalin daadinta dhiigga shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa ku dhaqan magaalada Muqdisho iyagoona marka ay sameeyaan ama ay daadiyaan dhiigga sidoo kalena ku faanaya in ay qaadeen tallaabooyin waaweyn oo ay kor ugu qaadayaan diinta Islaamka sida ay markaasi iyagu ay qabaan.
iyadoo arrintan ay jirta ayaa dhinaca kalena ah ciidamada dowladda federaalk ee Soomaaliya waxa uu heegan ku jira ay howlgal muddooyinkii ugu dambeeyay ka wadeen degmooyin ka tirsan magaalada Muqdisho kuwaas oo lagu tuhumayo in ay markaasi ku sugan yihiin xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab. degmooyinka sida weyn ee markaasi howlgalka uga socdaan waxaa ka mid ah Daynila, Hiliwaa iyo waliba xaafado ka tirsan degmada Wardhiigley ee gobolka Banaadir. ciidamada Haramcad iyo kuwa Duufaan ee ciidamo ka tirsan nabad sugidda Soomaaliya oo iskaashanaya ayaa 3 toddobaadii ugu dambeeyay waxay howlgalo ay ka wadeen magaalada Muqdisho kuwaas oo lagu soo qabtay xubno looga shakisan yahay inay markaasi ka tirsanaayeen ururka Al-Shabaab. wararka qaarkood ayaa waxa ay sheegayaan in xubnaha la soo qabtay haatan ay su'aalo weydiin ay ku socoto iyadoo markaasi xubnaha qaarkood ay cadeeyeen inay ka tirsanaayeen ururka Al-Shabaab ee magaalada Muqdisho ay u yimaadeen in qaraxyo ay fuliyaan. sidoo kale taliyaha nabad sugidda Soomaaliya Mahad Maxamed Salaad oo hadda ku maqan safar dalka Kenya oo marqaybna ka yahay wafdiga madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa isaga waxa uu amray in la adkeeyo amniga magaalada Muqdisho oo ay ku soo fooleeyeen qaraxyo la damacsan yahay in Al-Shabaab ay ka fuliyaan magaalada tan. wararka qaarkoodna waxay sheegayaan in Al-Shabaabka oo gobolada dalka xoog lagana saaray deegaano ka tirsan ay iyagu u soo wareegtay magaalada Muqdisho oo rabay inay qalqal geliyaan. ugu dambeyntiina wararka naga soo gaaraya markaasi dalka Ethiopia waxay sheegayaan waxa markii ugu horeysay wada hadallo yeeshay dowladaha madaxweyne Xasan Sheekh ee Soomaaliya iyo Abiy Ahmed ee Ethiopia oo la rumaysan yahay in xiriirkoodu uusan wanaagsaneen. wasiir dowlaha wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya Mudane Cali Maxamed Cumar ayaa kulan muhiim ah la qaatay ra'iisul wasaare ku-xigeen ahna wasiirka arrimaha dibadda Ethiopia Demeke Mekonnen Xasan. kulanka oo ka dhacay magaalada Addis Ababa ayaa waxaa looga hadlay horumarinta iskaashiga laba geesoodka iyo xoojinta xiriirka labada dal ee dhinacyada amniga, dhaqaalaha iyo danaha ay wadaagaan labada dal. kulanka ayaa ku soo dhamaaday miro dhal sida uu sheegay wasiir dowlaha wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya Mudane Cali Maxamed Cumar oo qoraal soo dhigay bartiisa Twitter-ka mana bixin wax faahfaahin intaasi dheer. kulanka ayaa imaanaya toddobaad kadib markii ay wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda Ethiopia ay iska fogeysay barnaamij uu baahiyay TV-ga dowladda Ethiopia kaas oo diiradda lagu saaray xaaladda Soomaaliya ciwaanna looga dhigay Soomaaliya waxay soo martay dagaalka sokeeye ee ugu weyn Afrika. wasaaradda ayaa xilligaasi qoraal ay soo saartay ku sheegtay in barnaamijkaas uusan matelin siyaasadda dowladda Ethiopia isla markaana uusan waafaqsaneyn xiriirka labada dal. barnaamijka ayaa si gaar ah diiradda u saaraya taariikhda madaxweyne Xasan Sheekh ilaa markii uu talada yimid sanadkii 2012 iyo ilaa hadda oo dib loo doortay 15 May 2022 waxaana warbixinta dib u kacatay xiriirka TPLF oo markaasi ka talinaya Ethiopia iyo Xasan Sheekh. xiriirka Soomaaliya iyo Ethiopia ayaa qaboobaa wixii ka dambeeyay markii Xasan Sheekh Maxamuud uu xilka madaxweynaha kala wareegay Maxamed Cabdilaahi Farmaajo oo saaxiibo iyo xulufo ay ahaayeen Abiy Ahmed. guud ahaan daawadayaal warkeed kala socoteen channelkan waa nageynta